Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaalkeena. Mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay xikmado qaali ah oo nolosha ku saabsan, wax badanna ka bedeli doona. Dadka qaarkii waxay ka qayb galaan aaska markuu qofka ehelka geeriyoodo, ayagoo muujinaya qiiro iyo inay danayn jireen, laakiin ma daryeeli jirin kamana warqabi jirin intii uu noolaa. Waxaa jira dad ku maqli kara adigoo ku hadlayo kumanaan eray, haddana aan ku fahmayn. Waxaa jira dad ku fahmaya adigoo xitaa aan hal eray ku hadlin. Haddii aad ka cabsan jirtay kalinimada ama cidlada, hadda ka cabso inay saaxiibo kuu noqdaan dad xun. Qof kasta qalad ayuu sameeyaa nolosha, laakiin taas micnaheedu maaha in ay naftooda u ciqaabaan. Mararka qaar dadka wanaagsan ayaa sameeya doorasho xun, micnaheedu maaha inay xun yihiin, micnaheedu waa in ay bilaadan yihiin. Waxaa jira 5 kelmadood oo muhiim u ah nolosha: caqiido, jacayl, daacadnimo, aaminaad iyo xushmad. Haddii ay noloshaada ka maqan yihiin, ku dhaqan kelmadahan. U isticmaal codkaaga naxariis, dhagahaaga wax khayr leh inay maqlaan, gacmahaaga sadaqo, maskaxdaada runta, qalbigaaga jacayl, jirkaaga oo dhan cibaado iyo alla ka cabsi. Xabsiga ugu weyn ay dadku ku noolaadaan waa cabsida iyo ka welwelida dad kale waxay ka aaminsan yihiin. Haddii aad iska hadasho wax badan, waxaad ku celinaysaa wixii aad horey u taqaanay kaliya, laakiin haddii aad dhegaysato, waxaad baranaysaa wax cusub. Dadka qaarkii waxay garanayaan magacaaga kaliya, ma oga qisadaada. Waxay arki karaan dhoola caddayntaada kaliya, ma oga xanuunkaaga. Waxay la yaabaan aamuskaaga, ma oga waxa maskaxdaada ka guuxaya. Waxay aqrin karaan qoraal aad soo qortay, laakiin ma oga waqtigaad ku lumisay. Waxaa jira 2 nooc oo daal ah. Mid waa daal aad hurdo iyo nasasho u baahan tahay, midna waa daal aad nabad iyo nolol u baahan tahay. Soomaalidu waxaa haya daal, waxa ay u baahan yihiin nabad iyo nolol.